ciyaartoyda ciyaara kubadda cagta qaar waxay leeyihiin xirfado dheer kubadda cagta maadaama waqtiga kubadda cagta la ciyaaro ay kooban tahay. xidigaha qaar ayaa raadiya xirfado kale oo ay ku maarayaan noloshooda. Jamaal Cabdiraxmaan Axmed oo khadka dhexe ee weerar kaga ciyaaray naadiga kubadda cagta ah ee Elman oo ah mid ay ciyaartoydii iyo taageerayaashu aad u jecel yihiin marka la fiiriyo farsamadiisa kubadda cagta oo ay u dheer tahay dhalinta goolasha. والله صباس مركب مسا جمال وكان جمال وباسي اول سكوندا جول وكان مركب جمال جمال waa dabaarle ama harqaanle qofba siduu u yaqaano kaasoo tala dharka noocyadiisa kala duwan haba ugu badnaatee kuwa dumarka nooca ugu badan ee laga tolo gudaha magaalada Muqdisho. waa kan Jamaal oo ii sheegaya goortu uu bilaabay iyo siduu u wajaho caqabadaha uu kala kulmo macaamiishiisa xilliga lagu jiro shaqada. wallahi hoolaan waqtigan bilaawaa intii oo bilooni bilaawin oo Soomaali ku imaanaya aan bilaaw hawshaasha markaanka wallahi markaas waxa suubnaa dharka markii qofku taleeno dharka wala weynaysta shay ma kiibanaysto ay rees kartaa laakiin shay hadii yarees ma weynaysmays in December waxa qofku markii dalab rabo dalabkiisi waa isku weynaha wax kasta iska ma kara bani aadam halisiya. laacibka ayaa sidoo kale ii sheegay sida uu ku kala maareeyo ciyaaraha kubadda cagta tababarka kooxda iyo waliba markay u yaalaan shaqooyin badan oo ay isku soo aadaan hal maalin. subaxdii 12 salaada assalaamu alaykum aalmiintada bilaabna maraxa ku soo baxnaa 4 saac marna lama saac bar macninka ku xirantaa aalmiintada waqtigiisi wala si uu soo baxaa wada tagaa waa qabeysana waa soo quraacna dukaankii ma dhalinyaro ay jooga ma sha Allah il shaqeeyaan wallahi maanta ciyaaraha oo beri amal markii ciyaarahan kulan leeyahay waa ma hal maalin ka hor jaabo alaabta uu jaraa waxa uu sii diyaarnaa si subaxdii oo shaqo ku galan ana waxa jeclaa kulmaha weynka markii amal soo aaday oo rasaid amal degdeg amal la banaadir heegan kulmaas amal xamaasad badan lahaana. xilligan waxa uu la macaamilayaa mid ka mid ah macaamiishiisa ayadoo ay ka dalbanayso in loo sameeyo nashqado kala duwan dhowrka dhar ay wadato. wuxuu ii sheegay Jamaal nashqadaha in dadka ay u keensadaan qaarkoodna ee iyagu hindisaan aroosdiyaasha amal dharka aroosyaashna waa tamnaa madaxiisayaashna waa tamnaa dhar fashion yani masawir kasta diyaar keensato oo google ka soo baxsato diyaarana hayno kuna tamno. Jamaal ayaa sidoo kale ii sheegay in xiriir leeyihiin carwooyin kala duwan oo aan qaarkood soo booqanay. wallahi carwooyinka hadda waan halka carwaan u shaqeey waan tusi dharka aan qaar aan ka talna waan soo tusi waa aragteen ma sha Allah tabarakallah isku jeesiyaasha dhar badan waxa jirta marayaal oo turki laga keeno oo dharka fashion kan ka talo oo carwada ma sha Allah waa isdiilgina uu kan dharna way diiwaan oo ku shaqeystaan ma sha Allah dharkana waa u tala waa ku dhiirgeliya ma sha Allah waa kala daneysana dunkan waxa waay laba qof waa kala daneystaan. Jamaal ayaa ka hadlay habka iyo barashada harqaanka iyo waqtiga ay ku qaadan karto qofka in uu barto. harqaanka barashada waa fudud hay'arta laakiin dhiirgelin hay'arta maxalla dhiirgelin iyo maskax deganaan iyo nafsadaadii aad waa inaa harqaan bartaa waa baranaysa laakiin dida dhahdo harqaanka waa iska maana waa iska baashaala waa iska baxa wax ma baranaysa waxa waa bis xaalad qofka isniyeysana harqaanka noo baahan yahay qofka disniyeysa waa suubi karaa laakiin qofka disniyeysanin dib wax ku hagaaji karo. ugu dambeyntii ciyaarahanka lagu magacaabo Jamaal Cabdiraxmaan kaasoo ah xidig ay wacan tahay farsamadiisa kubadda cagta marka la fiiriyo hanaan ciyaareedka ugu ciyaaro kooxda kubadda cagta Elman 7 gool ayuu u dhaliyay xilli ciyaareedka haafka maraya ee Somali Premier League waxaana ciyaaryahankan uu yahay mid ay aad u wacan tahay farsamadiisa kubadda marka la fiiriyo kaasoo hor u soo matalay naadiga kubadda cagta ee Dekedda kuna guuleystay horyaalkii 2017.